السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaasheeda qiimaha ee qayaalo meel kasta joogtaan kusoo dhawaada shabakada wararka Stella 24 caawa barnaamijka waxaa idila socodsiinaya anigoo ah Absaaq Axmed Jaamac waxyaalaha ugu waaweyn ee caawa barnaamijkan kaga hadlayna waxaa ka mid ah soo dhaweyntii loo sameeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi oo waddanka Mareykanka kaga soo noqday ee uu kusoo guryo noqday magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland waxaanu la wada soconay ilaa xalay ilaa maanta in dabaaldegyo kala gaar ay magaalada Hargeysa ka socdeen dabaaldegyadaas oo bilaabmay xalayto ilaa lagu soo gaarsiiyay ilaa xilliga madaxweynuhu ka soo degayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa dad fara badan oo iskood soo abaabulay ayaa gawaari soo kaxaystay wadada hareeraheedana tubnaa laakiin su'aashu waxay tahay muxuu ka duwanaa soo dhaweynihii hore ee madaxweynuhu uu kala kulmi jiray dadka markuu ka soo noqdo safarada wadamada Geeska Afrika tan arrintan waxay u eeg tahay markastuu madaxweynuhu uu baxo wadamada dibadda ah wuxuu culaysayda kala kulmaa siyaasadda madaxweyne Farmaajo ee waqtigeedii dhamaaday taasina ciriiri siyaasadeed bay ku keentaa madaxweynaha taasi waxay sababtay in madaxweynuhu taageero gudaha oo fara badan helo dadkuna ay markasta u soo dhaweeyaan sidii hore si ka duwan waxay ahayd muddo 2 sanadood laga joogo markii uu guri ka noqori madaxweynaha Somaliland uu booqday waddanka ku yaala Afrika ee dowladda Soomaaliya ay dabeetana si goloka fuula ay xiriirka ugu jartay waddankii uu booqday madaxweynuhu wuxuu sheegay markii uu Hargeysa ku soo laabtay dadka wuxuu kala hadlay meel fagaara ah airportka u dhow halkaas oo khudbad dheer uga jeediyay una sheegay guulaha Somaliland ee ka soo gaadhay socdaalkii uu ku tagay madaxweynaha iyo waftigiisu waddanka Mareykanka tan waxay u muuqataa guul siyaasadeed oo Somaliland u soo hoyatay kol haddii muddo 30 sanadood uu dhigaa ka fureysanayay waddanka Mareykanku uu iminka uu leeyahay Somaliland maxaa la qabsadaa sida madaxweynuhu sheegay madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay dareenka Mareykanka ee ah war xilligan aan wax wada qabsano Somaliland waxay doonaysaa cid uun ka soo hoysa dhaxanta siyaasadeed ee la kulantay muddadii 30 sanadood ay madaxa bannaaneed xilligan Somaliland culays waxa ku haya arrimaha dhaqaalaha oo dhalinyarada faraha badan leeyso soo gaadhay ee shaqo abuurka u baahan ee jaamacadaha ka soo baxaya ayaa Somaliland waxay ku hayaan diiqad siyaasiya inkastoo Somaliland ay horumar ka sameysay dhanka doorashooyinka laakiin arrintan waxay u baahan tahay xilligii Somaliland looga gurman lahaa haddii waxaan oo dhalinyaro aan shaqo loo helin madaxweynuhu wuxuu sii kaxaystay rag ganacsato ah oo Somaliland dhaqaale fara badan ku leh kuwaasoo yidhi waxaan u baahanahay caalamka kale oo isaguna maalgelin nala sameeya madaxweynuhu wuxuu sheegay inay caalamka ka soo heleen inay bangiyadooda iyaguna u furi doonaan Somalilandna ay si toos ah oo xor ah bangiyada caalamka transactionno ama dhaqaalaheeda ay isu weydaarsan doonaan maadaama Somaliland uu ka xidhnaa suuqaasi ayna ku qasbanayd inay xamar marto wasiirka arrimaha gudaha oo tilmaamay inay dacwadu ku socotay intii uu Mareykanka joogayba xukuumadda Somaliland oo dowladda Soomaaliya ay telefoonno saayida dhan kasta kaga soo direysay dowladda Mareykanka laakiin wuxuu sheegay wasiirka arrimaha guduhu inaanay arrinta dhag jal qusiinin howlahoodana ay wateen markaanu eegno si guud sawirka guud ee Somaliland xilligan wuxuu u muuqdaa in markastoo dowladda Soomaaliya uu cadaadis siyaasadeed kaga yimaado in xukuumadda iyo dowladdu ay helayaan taageero dhanka shacabka ah taasoo aad moodo inay ugu badinayso xukuumadda cadaadis siyaasadeed oo kaga yimaada Muqdisho inkastoo dowladda Muqdisho xilligan joogta ee madaxweyne Farmaajo waqtigiisu dhamaaday aanu lahayn go'aan siyaasi oo uu ku gaari karo ciduu go'aanka ugu jaro iyo ciduu ku soo dhaweeyo laakiin wali caalamku wuxuu leeyahay waxa loo baahan yahay Soomaaliya iyo Somaliland inay wada hadlaan waxaana u eegtahay markii la isku qasbi lahaa ee miiska labadoodaba la soo wada fadhiisin lahaa intaan waxaan ku soo gabagabeynaynaa faaladii gaabneed oo ku saabsanayd soo dhaweyntii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ee magaalada Hargeysa iyo bal waxyaalihii uu kala kulmay madaxweynaha Mareykanka barnaamijkan waxaa idila socodsiinaya anigoo Absaaq Axmed Jaamac sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh lagu socdiyo meelsinaan dabaas waxa lagu dhaqmaa waa Somaliland